قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وهذا الدرس التاسع من كتاب البيقونية لأخونا الشيخ نور عبد الله أبو فيصل. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan ku guda jirnay kitaabkii almanduumatu albayquuniya. waxaana soo gaaray darsiga mucdalka. mucdal waa xadiid axaadiidta ugu sharta badan ku jira. asalkiisuna mucdalka waxaa loo yiri laba qofood oo isku xigta ayaa sanadkiisii ka dhacday. meesha kuwa kale munqaطica iyo mursalkii iyo mucalaqii iyo hal qof ay ka dhacayeen, ayaa waxaad arkaysaa meeshaan inqiطaacii inuu soo galay laba qof oo weli bishardi sida culimada inta badan ay leeyihiin inay isku xigaan. hadday laba meel ku kala jiraan micnuhu maaha, waa ina naqan karaysaa oo kole laba qofoodaa maqan marka la itlaaqo. laakiin waxaa loola jeedaa saktiga marka waa in micnihii uu laba qofood oo isku xigtada bacdulculamaa ayaa ku dartay, laakiin laba qofood inay sanadka ka maqan yihiin ayaa asalkii ah. sheekhu wuxuu yidhi walmucdalu saaqitu minhu ithnaani. isaga naftiisaaba tacriifku ku sheegaya. xadiidkii mucdalka ahaa, mucdalku wuxuu leeyahay xaggiisa waxaa ka dhacay laba qofood. marka xagga luuqada mucdal maxaa loola jeedaa? horta yani inqiطaacu waxaa waaye munaafi lilitisaal. haddii xiriirkii inuu xadiidka xiriirsan yahay shardi ay ahayd, inqiطaac hadduu soo galo xadiidka dacfigiisa waa kuu muuqanaya, haba kala badnaado ama laba ha ahaado ama hal ha ahaado iyo waxa lamidka ah. marka shardigaas marka culimada qaar ayaa ku daraya inuu ahaado labo micnihii isku xigta inuu yahay. bacdulculamaa ayaa saas ayada ku darayo. nukadka ibn salaax raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay fain qiila, marka xaafid ibnu xajar uu soo guurinayay hadalka ibnu salaax, wuxuu leeyahay wax kaga horeeyey male. yacni baarida ama qeybtan la yiraahdo macnihi in wax laga alifo, ibnu salaax wax kaga horeeyey malahu nukadku uu ku sheegaya, laakiin sidaasi sax ma aha. lan ibnu salaax naftiisa waa looga horeeyey. lanno xadiidkan icdaalku markii loo fiiriyo waa uu yar yahay. marka axaadiidka kale ahlu xadiidka naftooda markay ka hadlayaanba waa uu yar yahay. macnihii icdaalka marka maxaa loola jeedaa? asalkiisu acdal alamru ayaa asalkiisu la yidhaahdaa. marka cadalkiina waa qaniinid. marka carabiga loo fiiriyo wax la qaniini ayaa la yihahdaa. marka xadiidkan marka uu leeyahay ibnu xajar nukadkiisa marka uu ku leeyahay micnihii faman salafa almusanifu yaqsadu ibnu salah, wax micnihii kaga horeeyey male. wuxuu leeyahay hadalkaa isaga ah sax ma aha, liannahu cali ibn lmadini ayaa kaga horeeyey sida xaakim naftiisa uu sheegay alculuum alxadiid canhum. cibaarada marka xaafid naftiisa uu sheegayo dad badanna way kasii dambeeyeen. cali ibn lmadini gadaashiisa way kasii dambeeyeen oo mucdalkii yani wax ka sheegay.
xaafid alkhatiib albaqdaadi raxmat ullaahi calayhi isagu mucdalka wuxuu u yaqaanaa ama maa rawaahu taabiciyun taabiciy can الnabiy salى اllahu alayh wasalam fayusamuunahu lmucdal wa huwa akfadu rutbati min almursal. wuxuu leeyahay waxa taabici kale ka wariyo ayay mucdalka macnihii u yaqaaneen, sababtoo ah wuxuu ka hooseeyaa uu leeyahay mursalka. mid kale waxay tahay qeybtaasi qeyb culummada ka mid ahaa mucdalkiisaa ku tilmaamaysa. qeyb kale culummada waxay leeyihiin waxaa ka mid ah axaadiistiisa qeyb ka mid a haddaan kuu sheegno, isaga wuxuu soo hoosgalayaa munkarkii iyo shaadkii iyo qalad ayaa aw maa huwa ashaddu min dalika bixasbi dalaalat liطlaaqi lilafdihi. kuwaas ayagu naftooda munkarka marka waaba akhul kadib, isagu waa imaan doonaa sida shaafici iyo ay leeyihiin. shaadkana waa nin isaga lagu kalsoonaayo warkiisa la qaateen u ahaa haddi isaga keligii waxuu kuu soo wariyo, laakiin maanta wuxuu khilaafay isna waa imaan doonaa. qeybtan kale qaladkana iqsaamta micnihii kolleyba axaadiidan kulligood waxay ku wada jiraan qeybta marduudka ay ku wada jiraan. iqsaam almarduud ayaa la yihahdaa, oo micnihii waa qeybta axaadiidka daciifaadka ah khabarkii marduudka ah ay ayagoo dhan ba ku wada jiraan. saa darteed marka mucdalka waxaad arkaysaa isagu sanadkiisaas labadaas qofood oo isku xigta inuu micnihii uu ka dhacay. imaam suyuuti raxmat ullaahi calayhi tadriibka isagu wuxuu ku leeyahay mursalka iyo munqaaca iyo munqaطicii iyo mursalkii iyo mucdalkii ayaa ishoos imaanayuu leeyahay. marka jamaaco badan oo culimada ka mid ahna hadalkaas yani way ka hadlaan. ayib amhiladiisa marka maxaa ka mid ah mucdalka axaadiidka micnihii oo culimmadu mucdalka ay yidhahdeen oo la qaniinay oo laga hadlay ayagu maxaa micnihii ka mid ah? waxaa ka mid ah tusaale ahaan imaam maxamed ibn yaxya duhali. waan ogtihiin maxamed ibn yaxya duhali imaam albukhaari raxmat ullaahi calayhi dood badan ayaa masaladii khalq afcaal alcibaad markii kitaabka u alifay. bini aadamkuna ilaahay subxaana wa tacaala mararka qaar wuxuu ku abuuray dacfi uu ku abuuray. sheekha marka uu yimid halkaas markuu yimid bukhaariya dhulkaas markuu yimid maxamed ibn yaxya duhali waxaa loo sheegay imaam albukhaari inuu dhulka uu soo galay. imaam albukhaari meesha marka uu yimid dadkii way maqleen oo way kusoo dudeen. markaasu wuxuu yihi ha u tagina, sababtoo ninkaas waxaa noola sheegay inuu leeyahay qur-aanka waa makhluuq. meeshaasi marka dood badan ayaa ka dhaxday maxamed ibn yaxya duhali iyo imaam albukhaari raxmat ullaahi calayhi. imaam albukhaarina yani waa uu caddeeyey masaladaas kadib, waaba kitaabkiisan khalq afcaal alcibaad ayaad ku arkaysaan in qur-aanka waa makhluuqna micnaheedu waa taqaana kutub alcaqiida looga tagaayo sida bani aadamku u qaldamayo o kale ayuu qur-aanka u qaldamaya waa makhluuq. ilan makhluuqu way qaldamayaan, qur-aanka waa qaldamaya meesha ka imaanaysa. waana masaladii axmed bin xambal dhibaatada badan looga geystay oo yani mutawakil iyo qisadii macruufka ahayd oo markaysaa soo martay saddexdii yani qofooda arrintaas shaarigtay ilaa mutawakil lasoo gaaray arrinteedii. ayib marka maxamed ibn yaxya duhuli xadiidka uu ka warinaya cabdullahi ibn luhayca, wa cabdullahi ibn luhayca isagu ikhtilaad ayaa ku dhacay. laakiin waxaa la yihahdaa laba cabdullaahi laba cabaadala haday wax kasoo cabdiraxmaan ibn mahdi iyo cabdullahi haday wax kasoo laba haday cabdullahi wax kasoo wariyaan cabaadalayaasha haday wax kasoo wariyaan xadiidkiisa waa xasan sida imaam albayhaqi naftiisa uu caddaynayo. wuxuu leeyahay marka bacdamaa kutubtiisa ay gubtaan ikhtilaad ayaa ku dhacay, yani xoogaa waa isdhex maray. marka axaadiistu uu wariyey qabla alikhtilaati waa saxiix, laakiin bacd alikhtilaat markii uu ikhtilaatka ku dhacay kadib waxa uu wariyo hadday laba cabaadala wax kasoo wariyaan bes ah ayaa micnihii sax ah. wixii intaa ka dambeeya culamada waxay leeyihiin xadiiskiisu wuxuu u baahan yahay in yani laga fiirsado. marka cabdullahi ibn luhayc uu ka wariyey yaxya maxamed ibn yaxya duhli wuxuu ka warinaya xadiid yarwihi ibn luhayc wax ka wariyey can yaziid ibn abi xabiib can ibn shihaab maxamed ibn shihaab zuhri can curwata can caaisha qaalat waxay tiri kaana rasuul lahi sal allahu alayh wasalam yactakifu fayamuru bilmariidi fayusalimu calayhi walaa yaqifu. xadiidkaasuu micnihi ka wariyey imaam yani waxaa la leeyahay marka yaxya maxamed ibn yaxya duhli xadiidkiisan waa mucdal laa wajha lahu inama huwa ficlu caaisha radi allahu tacaala canha
يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. hadalka isaga waa hadalka يعني عائشة ما aha nabigeena عليه الصلاة والسلام لكن فيما يعني sida uu sheegay waxaa waaye والوهم فيما نرى من ابن لهيعة wahmigana marka wuxuu ka yimid cabdulaahi ibn lhayc uu ka yimid saasoo kale xaafid ibnu cadi fi kitaabkiisa alkamil fi tarjumati ismaaciil ibnu cabaad albasri wuxuu leeyahy wahuwa ضaciifu asnada lahu xadiid wuxuu xadiid u tiiriyey min طariiqi ximaad ibn salma iyo ximaad ibn zayd iyo ayago ogo waa yani mashaayikhda waxbay ka wariyaan bukhaari iyo muslim wuxuu wax ka warinaya markas can qataad can qataad naftiisa waa lagu haystaa tadliisku ku imaan doonaa can anas oo ka warinaya ana nabiysa qaala wuxuu yihi arrahanu bima fiihi ibnu cadi wuxuu leeyahay raxmat ullahi calayhi ismaaciil ibn abi cabaada hada laa acrifhu ila bihada alxadiidi ninkan xadiidkan waxaan ka ahayn kuma naqaano wa huwa xadiidu mucdal bihada isnaad xadiidkaadana waa mucdal uu leeyahy laba qofooda sanadkeeda ka dhacday waxaa kaloo lamid alkamil fi tarjumati ismaaciil ibn ciyaash alximsi wuxuu leeyahay asnada ibnu cadi xadiid lahu min riwaayatihi can ibni jurayd ibnu jurayr uu ka wariyay can abi zubayr can jaabir qaala ra'aytu الnabiy sala allahu alayh wasalam mumsikan biudunayhi xadiidkaasuu warinaya ayib xadiidkaas qaala ibnu cadi wuxuu leeyahay hada alxadiidu mucdal munkar yani munkar bihada isnaad sanadkan munkar uu ku yuhu leeyahay waa mucdal munkar ah labadii waa israaciyey walaa yarwi gayr ibnu ciyaash ibnu ciyaash qofaan ahaynna ma warinin can jurayj ayuu ka wariyey wa qalita cala ibnu jurayd ibnu jurayd waa uu qaladu leeyahay inamaa rawaahu ibnu jurayd qaala xadiidu can cikrama can ibnu cabaas ayaa laga wariyey can sacad ibn abi waqaas yani saas ayaa xadiidka loo wariyey qaladkan halkaasuu ka yimid marka lafdigaas isaga ayaa mucdal ah ayib marka soo uma jeedid meeshaas ayada ah in macnihii laba qofood sanadkooda uu dhacay qaala xaafid ibn xajar nuqudka wuxuu ku leeyahay mucalliqan cala yani xadiidka tacriifka ibnu salaax oo aan soo sheegnay ibnu salaax wuxuu tacriifkiisa u ahaa marka uu ku hadlayay isagoo macnihii tacriifka mucdalka ah sii dabagalaya wuxuu yidhi qultu waxaan idhi wajadtu tacbiira bilmucdali fi kalaami aljamacati min alaimati alxadiidi fima lam yasqutu minhu shayun albatta hadalkaas isaga micnihii uu daba dhigay calaa kuli xaal mucdalka waxaad ogaanaysaa wuxuu ku jiraa un qismiga la yidhaahdo iqsaamu alxadiid almarduud ayuu isaga ku jiraa sanadkiisana waxaa dhacay fa ina sababu daciifi daahir khafi ma aha waa muuqdaa laba qofood oo micnihii loo jeedo ayaa micnihii sanadkiisa ka dhacay ayib ibn xajar isaga wuxuu leeyahay inama yakunu almucdalu aswأ xaal min almunqaطici ida kana alinqiطaacu fi mawdici waaxid min alisnaad inqiطaaca waa ka xun yahay mucdalku waa ka xun yahay mucdalkii laba meel ayuu micnihii hal mar jaraya laakin inqiطaaca wuxuu gali karaa yani hal meel keliya ayuu galaahu yiri marka kaasaad ba u malaysaa inuu ka sahlan yahay saas ayuu leeyahay marka waana runo mucdalka waa ka dhib badan yahay xukumkiisa marku muxuu yahay alxaafid alkhatiib albaqdaadi wuxuu leeyahay xukumkiisa waa xukumka mursalka oo kale fi lictibaari bihi faqط wa ama cala almacna thani falaa yudkl fi baab lictibaari wallahu aclam facala kuli xaal mucdalku laba qofood oo isku xigta waa aswaء اlxadiid inta hadda aan soo sheegaynin isaga uga xun marka laga saaro un kuwa micnihii mawduuca marka laga saaro sababtoo laba qofood oo isku xigta oo daahir ah ayaa xadiidka sanadkiisa maqan saa darteed xadiidka wuxuu ku noqonayaa sharu lxadiid uu noqonaya isaga naftiisa wax sahlan maaha qeybta kaleo ku xigta waxay tahay waxaan galaynaa marka sheekha wuxuu yidhi wamaa ataa mudallasan nawcaani wamaa waxa ataa u la yimid mudallasan ataa mudalisan nawcaani ataa waa ficil amr marar qaarna waxaa arkaysaa ataa amru llahi in alla subxaana wa tacaala uu leeyahay waana soo marnay qeyb kamid a sayati amru llahi marka waxa uu limid wamaa waxa ataa u limid mudalasan qofka mxnihii mudalaska ah nawcaani waa laba nooc alawal midka ugu horeeya waxaa waye alisqaatu lishaykhi inuu sheekhiisii uu rido
kadib muxuu samaynayaa sheekhi haddii meesha uu ka saaro sheekhii wax uu ka warinaya haddii meesha uu ka bixiyo muxuu samaynayaa kadib wa an yanqula inuu macnihii uu tilaabsado oo u guuro caman ayuu u tilaabsanayaa fawqahu yani qof kaloo kasii sareeya ayuu u tilaabaya sheekha markuu ka boodo wuxuu wax kaga warinaya bican cancana waan soo marnay iyo wa an iyo can iyo qaala noocaasuu ka warinaya siiqada macnihii kolley siiqada tamriidka la yiraahdo qeyb kamid a soo galaysa kani marka isaga sheekhi intuu ka boodo uu macnihii uu ka wariyey caman fawqahu qof ka sareeya oo ka kor jiro wax ka wariyey siiqadu wax kaga warinayana waxaa waye siiqat macnihii mubham uu wax ka warinaya majhuul can uu wax kaga warinaya can fulan iyo wa an fulan qaala saasoo kale ku warinaya wathani midka labaad laa yusqituhu sheekhiisii ma tuuraayo isaga midkaani laakiin yasif wuxuu ku tilmaamayaa awsaafuhu tilmaamo bimaa shaygaasoo bihi maaga laa yancarif horta luqad micnihii ma aha oo sheekha meeshan waxyaalaha isaga naftiisa awsaalkii aan soo sheegayn mutasima aheed yancarifna marka hadda abaartay yancarif waxa la yirahda xagga luqada ma jiraan waa wax iska micnihii laakiin gabiga unbuu ku qurxinaya marka midkan sheekhiisii uu tuuray qofkii micnihii ka sareeyuu u booday kan midkan laakiin isagu sheekhii ma tuuraya laakiin haddii la weydiiyo sheekhaaga magaciis wuxuu ku tilmaamaya wathani laa yusqituhu yani sheekhu sheekha ma tuuraayo laakiin lagu laabay yasif wuxuu ku tilmaamaya awsaafuhu yani awsaafu sheekhiis wuxuu ku tilmaamay bimaa ayuu ku tilmaamaya maagaasoo bihi maagu waxa uu tilmaamayo laa yancarif aan la aqoonin sheekhi wuxuu ku tilmaamayo magacuu ku sheegay lama yaqaano qismigan tadliisku isagu waa dhib badan yahay anwaacu sakht alkhafiy ku jiraa sakta daahirka ma aha sakta daahirka munqaطicii iyo mucdalkii iyo mursal khafiyna waa u jiraayo oo isaga naftiisa qeyb kamid aanan soo tilmaanay laakiin waxaad ogaataa noocan waa waxyaalaha ugu badan oo la baaro oo adag waaye sababtoo ah dadka aad baarayso yani farqu bayn irsaal alkhafiy iyo midkan farqi u dhexeeyana haddii waqti aan u helno waa tilmaami doonaa tadliisku isagu maxaa la yihahda culamada tacriifaad kala gooniyay siinayaan tadliisku waxaa la yihahdaa mudalisku waa ismu mafcuul waay isagoo waxaa laga keenay min atadliisa laga keeniyo wtadliisu waxaa laga soo jeexay dallas bitaxriik dallasi bitaxriik qaala yani wuxuu leeyahay ibnu faris wuxuu leeyahay addaalu daalkan isaga ah wallaamu ilaanka iyo wasiin aslu yadulu calaa sitri wadulmati mudalisu laamka iyo siinka iyo daalka meesha ku jira asalkiisu wuxuu ku tusinayaa wax la qarinaayo oo aniga hadda timahaygay haddii aan cilaan mariyo wadaadadii beri dambena farsamo kale keena nimanka say u dhihi jireen un madoobeysadu ma banaana madoobeysada waa xaaraam xadiidka kusoo aroortay un si xadiidka abubakar aabihiisi in si cabdullahi ibn qaxaab si loo daliilsanayay mar dambe waxaa la keenay madoobeyso oo la leeyahay wadamadan laga soo sameeyey dhulka carabta oo waa cilaan madow ah garkiioo madow madaxiioo madow waa tadliis waay isaga naftiisa tadliisa wuxuu tadliis ku yahay tadliisku maxaa la yihahdaa haddii qofkii micnihii isagoo oo qof weyn oo tintiisa ay ciro ahayd cilaanka ilan asalku maadada waa gaduud cilaanku cilaan madow adinku raadiya haddaana maado lagu darin maxaa madoobey saa darteed sheekh mubin sheekh raxmatullahi caleyhi kitaab uu ka sameeyey waxaa waaye oo yani axaadiidtana meesha risaaladiisa ku jamcinaya waxaa arkaysa tadliiska waxaa waaye qofka isagoo weyn inuu tintiisa cilaankii u qariyo oo madoobeyso u mariyo gabar yarna uu guursado haddaad wixii samaysay tintii ayado janis kuma siinayso way soo baxaysaa 7 maalmood markay dhamaatay wadaadda waxay ku leedahay war sheekh maxay tahay waxbaa meesha ka soo baxay timo way madoobaayeen maya waa cilaan iska madoobaan markii hore mariyo hadda waa qariyo wixii waa tadliis waay waxaa kaloo lamid ah abuurista ilaahay subxaana watacaala dumarka uu siiyey oo kale inay inta wax gagashato oo ay waxay samayso oo qofkii nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi gacmaha iyo wejiga ka fiiriya qaar culummada ka mid ahna madaxayba ku daraayaan oo wejiga madaxuu ka mid yahay leeyihin marka micnihii gabadha la raba micnihi in la doonto nabiga waxaa lagugu yeeraya iska fiiriyuu leeyahy gacmihii iyo lugihiina imaam shaafici wuxuu yidhi gabadha gacmahana iyo lugaheeda haddii la arko waa la fahmi karaahu yidhi yani quruxdeedii waa la fahmi karaahu yidhi oo shaaficiyada iyo ayagu waxay ku ekeystaan oo keliya inay banaan tahay labada gacan babacoodada meeshaas iyo wejiga waxa intaa kasoo horan shaaficiyadu
ayadu ma banaysa. Laakiin bacd culamaa waxay leeyihiin wejiga madaxu kamid ah timaheeda waa la arki karaa. Ayib hadday timihii ay wax ku samaysay ama jirkeeda kala abuuris ilaahay u abuuray ay waxyaalo kala gagashatay oo qofka markuu soo structure-ka hore intuu fiiriyay u sir ma sha Allah ama gacmaheedii uu arkayo gacmihii ay wax mariso ay cadaysay wejigiina cadaysay daawooyin markii hadhow arooskii iyo shahru casalka markuu dhamaadayna qofkii nooc kale ay ku soo baxdo waa min tadliis soo maaha waa tadliis waay yani waa wax la qariyay laakiin asalka culimada tacriif kale siinayaano waxay leeyihiin isagu waxaa la yiraahdaa waana lamid kitmaanu lcaybi السلعة عن المشتري قفك wax kaa iibinaya oo kaa iibsanaya silcadii uu kaa iibsanaya loo qariyo tadliisku la yiraahdo waa qarin uun marka فكأن muxuu noqonaya marka almudallisu ataqtiya inuu wax qarinaya noqonaysaa marka saasay noqonaysaa waxaa waay marka waxaa la yidhaha alxadiidu adlama amruhu xadiidka arrintiisa madow uu noqday fasaara alxadiidu mudallasan arrintiisa mugdi u galo ama la aqoon waayo mudallis micnihi saasaa la yihahdaa waa xagga luuqada waxaa waaye saasay ayagu ku yidhahdaan ayib xagga istilaaxa waxaa waaye marka ikhfaau lcaybi fi lisnaadi in sanadkii ceeb loo micnihii u qarsoomo taxsiinu daahir daahirkii sanadkii xadiidka markaad fiirisana waa fiican yahay laakiin xaalkiisa oo sanadkana inuu ku qarsoomo oo ceeb uu qarinayo taasaa la yihahdaa saa darteed jariir bn cabdullahi albajli xadiidka abi ruqiya tamiim ibn oso dari imaam nawowi naftiisa uu kusoo saaraya arbiciinkiisa waxaa waaye xadiidka wuxuu ahaa nabigana alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi micnihii addiinu nasiixa jariir ibn cabdullahi albajli riwaayadaas bukhaariga ay ku jirtaa waa riwaayadii baayacta rasul llahi sallahu alayh wasalam laakiin xadiidkan waxaa wariyey abi ruqiya tamiim ibn oso dari cabdullahi ibn cabaas cabdullahi ibn cumar abi hurayra thawban mawla rasul llahi sal allahu alayh wasalam shan raawiya xadiidka isaga marka abi ruqiya kiisa laga saaro abi ruqiya shan ku noqonayo riwaayadan jariir ibn cabdullahi albajli oo mudalliska hadda aan leenahay waxaa waaye yani nabiga calayhi salaatu wasalaam nin ayaa micnihii uu yimid raashin uu iibinayay markaasuu raashinkiisiiu damca inuu fiiriyo gacantuu saas u geliyey qoyaana uga soo baxay raashinka nabiga wuxuu yihi alayhi salatu salam maxaad hoos u marisu yiri wax qoynaa wuxuu yihi asaabatahu samaa rasuulka alla roobaa ku da uu yiri marka roob haddii uu ku da-ay maada hoos micnihii kor soo saartid maxaa hoos ugelisu yiri marka waa taas qofka wax kaa iibsanayay in wax loo qariyo oo een loo qariyaan banaanin saa darteed jariir ibn cabdullahi albajli marka loo yimaado wuxuu dhihi jiray shayga adiga iibsanaysa maanta xaalkiisa waa sidaan berina saasoo noqonaya maalinka kale saasoo noqonaya saxaabadu way la yaameen waxay yidhahdeen jariirow waxna waa iibinaysaa eentoodina waa sheegaysaa markaasuu wuxuu yidhi hadal micnihii cajiibuu ku tilmaamay wuxuu yidhi ogow waxaan kuu sheegayaa uu yidhi anigu nabigaan kula baayactamay calayhi salaatu wasalaam inaan u naseexeeyo qof walba oo muslim ah inaan u naseexeeyo ayaa nabiga calayhi salatu wasalaam kula baayactamay marka waa uu tusin jiray jurayr yani waxaa waaye jariir ibn cabdullahi albajli wuxuu tusin jiray yani eenta waxa uu leeyahay ayuu micnihii tusin jiray marka mudalliska saasaa la yihahdaa tacriifkiisa marka waa midkaan soo sheegay an yarwiya waxaa la yihahdaa marka tadliisku saddex noocuu u kala baxaa tadliisu shuyuukh tadliisu lisnaad iyo wa tadliisu taswiya saddexdaas u kala baxa laakiin sheekhu laba ka mid ah unbuu meeshaan ayada ah hadda nooga sheegay oo yani ma wada sheegin saddexdaasu tadliisu lisnaad tadliisu shuyuukh iyo tadliisu taswiya saddexdaasu micnihii u kala baxaa tadliisu lisnaadka wuxuu soo hoosgalayaa tadliisu taswiya wuxuu ugu tagayna waa saas tadliisu isnaadka ayuu wuxuu soo galayaa un tadliisu taswiya saa darteedu isaga laba kaliya kaaga soo qaaday oo tadliisu shayuukha yani waxaa waaye micnihii ukuka marka waxaa lagu garanayaa labada nooc hadda uu tilmaamayo qofka wax uu ka wariyey falaabudda inuu sheega hadda tusaale ahaan wuxuu meesha uu leeyahay wamaa ataa mudallasan nawcaani alawalu isqaatu lishaykhi kani sheekhiisi ayuu guuriyey micnihii uu ka tegey uu riday wuxuuna u guuriyey marka caman fawqahu bican wa an wax ka guuriy wathani sheekhii ma tuuraayo laakiin marka isaga wax la weydiiyo mudalliska waxaa waye magaaladan uu ka tegey stockholm uu tegey stockholm markuu tago magaciisiyuu bedelay sheekhiisiyuu micnihii magaciisina u bedelay magaciisu waa nuur sheekhiisuna waa cabdullaahi marka wuxuu yihi sheekhayga waxaa la yihahdaa maxamed anigana waxaa la yihahdaa axmed oo kale marka xaggee ku dhalatay magaaladiina waa bedelaya sheekhiisiyuu bedelay magaaladii u bedelay waxaa waaye magaciisina waa bedelaya marka waa wax aad u adag marka in isaga magaciisi lasoo helo magaalada ku dhashay lasoo helo iyo sheekhi waxuu ku bartay in lasoo helo saddexdaas aaday u adag tahay saasaa mudallis loo yihi
marka saddexdaas nooc waaye, laakiin sheekhu waa isku daba qabtay un yani tadliiskii ayuu laba un kaaga soo saray, tadliis isnaadi wa tadliis shuyuukh. saasuu ku tadliis isnaad waxaa la yihahda marka tacriifkiisa carafa culamada waxay ku tacriifiyeen xadiid hada nooc min tadliis tacriifaat mukhtalifay micnihii ay ayagu ku tilmaameen. ayib laakiin midka ugu sahlan ba aan kusoo sheego oo imaam sakhawi iyo bazaar iyo abi xasan ibnu qataan iyo raggaas ay ku tacriifiyeen, kaas ba aan qeyb ka mid ah kasoo qaadno. waxay leeyihiin culimada an yarwa araawi caman qad samica minhu. tacriifka tadliis isnaad waxaa waaye raawigii inuu wax uu ka wariyo qof asaga uu maqlay. riwaayat raawi caman caasara waa la yidhaahdaa walam yalqahu muhawiman anahu laqiyahu wa samica minhu aw caman laqiyahu walam yasmac minhu muhawiman anahu samica minhu. ayib khatiib iyo ibn salaax iyo nawowi ibnu kathiir iyo ibn lmulqini alciraaqi iyo dadka la midka ah oo ahluxadiidka ayaa micnihii tacriifka naftiisa qaba inuu raawiga wax uu ka wariyo caman qad samica minhu qof wax uu ka maqlay maa lam yasmac minhu wuxuusan ka maqlin uu ka wariyo min gayri an yadkura inuu sheego anahu samica minhu inuu micnihii wax uu ka maqlayn inuu sheego. tacriifka isaga ah ayaa micnihii tadliis isnaad bacd alculamaa ayay soo sheegaan. ayib waxaa loola jeedaa marka ninka wax dalisinaya lam yasmachu minhu asaga waxba kama maqlin sheekhan wa inamaa samica min shaykhin aakhar canhu, sheekh kale wax ka maqlay wuxuu u ekaysinaya marka kan in wax uu ka maqlay. fa yusqitu dalika sheekh, sheekhiisii yuu tuuraya marka sheekhiisi ayuu tuuraya wa yarwi can sheekh alawal bilafdin, sheekhii koowaad wuxuu wax kaga warinayaa lafdi oo muxtamal lisamac wagayrihi, yani lafdi oo muxtamal ay tahay keyrkiisi inuu wax ka maqlay uu micnihi ku haminaya. wuxuu leeyahay qaala ow can, yani liwahima gayrahu anahu samica minhu, dadka isagaan ahayn oo wahmi gelinaya u malaysiinaya inuu ninkaa isaga lafdigaa kasoo maqlay, laakin laa yusarix bianahu samica minhu hada alxadiid, ma cadaynaya marka inuu xadiidkan kasoo maqlay. falaa yuqaalu ma dhahaayo samictu ow xadathanii, yani saas ma dhahaayo, wuxuu wax kaga warinaya qaala ow can uu ka warinaya. waa tadliisiisa oo ma jeegdi qofuu wax ka maqlina wuxuu leeyahay waxaan ka maqlay. marka taas waaye, taasaa loola jeedaa tadliiskan, yani qeybtaasa loola jeedaa. tadliiskan qeybtiisii kale haddii aan sheegno atadliis taswiya waxaa waaye huwa nooc tadliis huwa alxaqiiqata nooc min anwaaci tadliis isnaad. wuxuu galaa sanadkiiu galaa tadliis taswiya. tacriifkiisa waxaa waaye warka huwa riwaayatu raawi can sheekhihi, sheekhiisi inuu wax uu ka warinaayo ثuma isqaaطu raawin ضaciif. huwa riwaayatu raawi waa riwaayad raawiga uu warinaya can sheekhihi uu ka wariyo ثuma isqaaطuhu raawin ضaciifi bayna hiqatayni, laba qof oo hiqa ah dhexdooda daciifkii ku jirayaa la tuuraya. kaasa suuradaas asaga la yihahda waxaa la yihahda marka taswiya la yihahdaa. sheekh hiqa ah iyo sheekh kaloo hiqa ah ninkii u dhexeeyey oo daciifka ahaayaa meesha laga tuuray. marka sheekii aad daciifka aad tuurtid meeshii soo baxaaya laba hiqa ah soo baxayso, labadii isku xiraya markaasuu sanadkii wuxuu kaaga dhigaya maasha allah sanadkan inuu isku xiran yahay, waana isuu kaa xiran yahay daahirka markaa fiidis. laakiin cilada khafiga ku jirta maxay tahay? nin maskiin ahaay oo daciif ahaya meeshii laga tuuray, waana kuwa ugu sharta badan isaga naftiisa. daahirkun baa la fiirinaya xadiidkan waxaa leeyahay maasha allah daahir sanadkiisa aad u fiican yahay, laakiin gudihiisa waxaa la tuuray yani nin ayaa la tuuray. taasaa micnihii la yihahdaa qeybtaas ayada ah. ayib tadliiska marka tadliis shuyuukh waxaa ka mid ah an yarwiya raawi can sheekhin xadiid samicahu minhu fayusamichu o yukniyahu o yansibahu o yasifahu bima laa yucrafu bihi kay laa yucraf. inuu raawiga xadiid uu ka wariyo sheekhiisa uu kaga wariyo xadiid oo wax u maqlay, markaas kadibna sheekhii magaciisa ama koonyadiisii ama nisbadii uu bedelay magac kale uu ku bedelayaa sheekhii si aan loo aqoonsan isaga naftiisa aan loo aqoonsano magacii sheekhi intuu bedelo wax kale micnihi ugu dhawaaqaya. tacriifkaas marka ayaa micnihi isagana la yihahdaa
xukumkiisana waa min anwaacu daciif waay sida micnihi culimadu inta badan ay sheegaan. tadliis isnaad marka iyo tadliis taswiya labadaas waa isdhexgalaya. tadliis shuyuukh yani waxaa waaye beledkuu soo galaya sidaan kuu sheegay magacii beledka iyo sheekhii magaciisa iyo wixii la bedelo raawigi inuu u wariyo qof la caasiray oo sanadkii uu la jooga zaman ay ahaayeen laakiin uusan la kulmin macaasaray wad ahaayeen laakiin lama kulmin inahu laqiyahu wa samica minhu oo camal laqiyahu qof uu la kulmay oo isku zaman ay ahaayeen laakiin waxba uusan ka maqlin uu wax ka warinaya wuxuuna wahmi gelinaya marka u malaysinaya dadka dada beeqa sheekha hadda wada joogto sheekh cabdul xuseen cabaadi sheekh rabiic ibn hadi al-madkhali iyo culimada sheekh fawzan iyo hadda isku zaman aan joognaa waxbana kaba warin karan inkastoo sheekh fawzan uu noogu dhow yahay oo anaga noo akhriyey akademiyada oo looga akhriyey oo online ka ahayd ilaa iyo 2 kitaab ama 3 kitaab 2 kitaab taqriiban ama 3 uu noo akhriyey oo imtixaanaadkiisa aan galnayba laakiin culimada kale mucaasaro waa nahay laakiin waxba kama warin karo marka wuxuu u malaysiinaya mucaasaray wada ahaayeen inuu wax ka soo maqlay oo dadka ku wahmi gelinaya taas asagoo asalkiisu la yiraahdo. midda labaad waxaa waaye riwaayadda labaad waxaa waaye riwaayatu raawiga inuu riwaayad u wariyo caman samica minhu qof wax uu ka maqlay xaggiisa maa lam yasmachu minhu waxuusan ka maqlin uu ka wariyo isagoo wahmi gelinayo inuu xaggiisa ninkan wax uu ka soo maqlay. taas ayada ahna waa soo tilmaamay bazaar iyo ibnu cabdilbar iyo ibnu qatan iyo ibnu xajar iyo sakhawi iyo rag badana arintaas ayada micnihii ku tagaayan. xaafid ciraaqi raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay wa inamaa in kalama ah yakunu wuxuu ahaanaya tadliisku ida kana mudalisun qad caasara marwiyun canhu. tadliisku wuxuu ahaanaya inuu wax uu ka soo wariyo qofka casriga uu la joogay ama uu micnihii la kulmay laakiin waxba uusan ka maqlin isku casri ay ahaayeen waa la kulmay hatee laakiin waxba kama warin aw samica minhu ama waxba uu ka maqlay walam yasmac minhu daka alxadiid laakiin xadiidkan uu tadliisinayo oo uu qarinayo waxba kama maqal. waqad fuhima hada sharط min qowlihim yani hadalkaasna waxaa laga fahmaya yuwahimu itisaalan wainama yaqacu libhaamu maca almucaasarati. hadalkaa isaga waxaa lagu soo guuriyaa tafsirada ayaa lagu soo guuriyaa. ayib marka noocyadaas ayay naqdaan marka tadliisku waa tiro badan yahay. 3 asbaab ayaan micnihii tilmaamaynaa. ibhaamu yani samaac miman lam yasmac minhu inuu yani uu wahmi u sameeyo ama uu qariyo ibhaam mubhim inuu ka dhigo qof wax uu ka maqlay u malaysiiyo dadka uusan waxba ka maqlin. ayib cuduluhu cala alkashfi ila اlاxtimaali cilmuhu bianahu low dakara aladi dalasa canhu lam yakun mardiyan. 3daas sharuud ayay micnihii xukumkiisu waa culimmadu waxay leeyihiin way isku khilaafayaan ma la aqbalaya mise ma la aqbalaya haddii uu qoolkii uu caddeeyo iyo haddii kale dood badanaa ku jirta laakiin noocyadaas ayaa micnihii lagu kala gartaa waa mudaliska xaalkiisa. marka 3daas noocuu sheekha uu sheegay laakiin 3dii yani qeybood 2 qeybooduu sheekhan isaga uu kasoo micnihii uu kasoo qaatay oo waa uu ku soo gaabiyey. wamaa ataa mudalasa nawcaani waxa mudaliska uu la yimid waa 2 nooc. awala midka u horeysa isqaatu lisheykhi sheekha waa inuu micnihii uu tuuro uu rido wa an yanqula inuu micnihii uu aado caman fawqahu qofka isaga ka sarreeya u guuro bican wa an wax kaga wariyo. wa thani midka labaad laa yusqituhu ma tuurayo sheekhu laakin yasifa sheekhiisa wuxuu ku tilmaamaya awsaafuhu tilmaamihiisii ay xukm bimaa shay bihi laa yancarifu tilmaamo aan la aqoon ayuu sheekhiisii uu micnihii ku bixinaya yani magacii iyo kunyadii isamkii iyo naaneestii wixii o dhan ayuu bimacnaa uu bedelaya. saasaa micnihii uu ku yimid in sheekhu xadiidkiisi saas uu noqdo. kaasi waa mudaliskii iyo xaalkiisii iyo meelaha uu aaday. ayib qeybta labaad waxaa waaye mudalisku ma la deliisanaya mise lama deliisanayo. imaamu dahabi wuxuu leeyahay calaa kuli xaal ninka yani mudaliska ah haddii tadliiskiisa wixiisa uusan saraaxin aysan cadayn qofka uusan cadayn in wax ka wariyey lama qaadanayo. culimada in badanna qolkaas ayay bimacnaa leeyihiin. kadib inta sheekha wuxuu yihi wamaa yukhaalifu hiqatu fiihi اlmala
fashaadu wاlmaqlubu qismaanin tala. wamaa waxa xadiidka ama qofka yukhaalifu qofka hadduu uu ku khilaafo markaana matnigiya micnihii uu ku hadlaya, wuxuuna ka hadlaya xadiidkii shaadka ahaa iyo tacriifkiisa ka hadlaya. wamaa waxa yukhaalifu uu ku khilaafo hiqatu qofka hiqa ahaa fiihi lmala koox micnihii uu ku khilaafo, fashaadun shaadka iyo maqluubka xadiidka maqluubka ah waa qismaani laba qeybood oo tala la akriyo yiri. meeshan wuxuu tilmaamaya xadiidka shaadka la yidhaahdo waa man shada bimacnaa infarada, fashaad waa qof arin la kali noqdaa la yihahdaa, macnaahu munfaridu can iljamhuur, saas ay u yaqaanin. istilaaxan waxaa waaye maa rawaahu lmaqbuulu, qof maqbuul ahaa maa waxa rawaahu uu wariyo ama shaksi uu wariyo rawaahu maqbuul, qof maqbuul ahaayo mukhaalifan isagoo khilaafayo liman huwa awlaa minhu, qof isaga micnihii ka haboon ama ka wanaagsan inuu yani uu khilaafo. nuqbadan tacriifka nafteeda micnihii ayada lagu keenay, nuqbat alfikrka taa nafteeda lagu keenay. maa rawaahu maqbuulu, maa rawaahu wax uu wariyo qof maqbuul ah mukhaalifan isagoo micnihi uu khilaafayo liman huwa awlaa minhu, isaga qof kaga haboon arrintaas ayada uu khilaafayo. cabdilcaziz ibn mukhtaar oo kale riwaayadan marka lasoo galaayo bismi illaahi allahuma inii acuudu bika min alkhubthi walkhaba'ith, riwaayadaas oo kale kamid ah. bismi illahidi laakiin waxaa soo arooray isha iyo jinka micnihii insiga iyo jinka waxaa u dhexeeyay inuu yihahdo bismi illaahi. haddaad bismi illahi dhihin jinka markaad musqusha galayso waxaa samaynaysa waa ku arkaya, riwaayadaas gooni waaye. laakiin midan isaga wuxuu ku warinayaa yani bismi illaahi allahuma inii acuudu bika min alkhubthi walkhaba'ith israacsan u warinaya. saa marka waxay tahay cabdilcaziz ibnu mukhtaar isagu yani waa nin maqbuul ah oo isaga keligii haddii xadiid uu wariyo waa warkiisa nin la qaateena. laakiin maanta wuxuu khilaafaya riwaayadda bukhaari iyo muslim, rag isaga hiqa uu khilaafaya. tacriifkana hadda uu micnihi aan ku siiyey maa rawaahu lmaqbuulu mukhaalifan liman huwa awlaa minhu, waa sida uu doortay imaam shaafici rag lamid ah. laakiin culamada kale waxay leeyihiin waa qof hiqa ahaayo qof kale hiqa ahaa khilaafay, saasay micnihi ayagu kusoo gaabsadaan. marka shaadku waa munfarid, in arrin aad la shaad naqato oo aad la keli naqato waa micnaheedu xaggaasay ka timid. ayib waxaa kaloo la yihahdaa alxadiiث aladi yukhaalifu fiihi raawi hiqa, waa xadiidka ninka micnihii hiqada ahaa uu khilaafayo ay mawsuufun bidalika wahuwa man jamaca cadaalat dabtu wa kanat mukhaalafathu biziyaadati aw naqsin sawaء kanat fi lsanadi aw fi lmatni aw fiihima macan. marka intaasba way soo gashaa, waa ninka hiqada ahaayo maanta qof kale oo hiqa ah isagii khilaafayo. wamaa waxa ama qofka wamaa yukhaalifu hiqatu, wamaa wax uu yukhaalifu ku khilaafo athiqatun qof lagu kalsoon yahay fiihi lmala koox dhan uu ku khilaafo, fashaadu shaadka iyo maqluubka xadiidka maqluubka ahaa isagana gooniyan u imaanayna. waa yani qismaana waa laba qeybood oo tala la akriyo. malada marka waxaa loola jeedaa jamcu min athiqaati almaqbuuliin ayaa loola jeedaa, koox dhan oo lagu kalsoon yahay oo maanta isaga keligiisa uu khilaafaya. ibnu athir yani tacriifaad oo isaga naftiisa uu ka bixinaya ayaa jirta. yani wuxuu leeyahay aladina yurjacu ilى aqwaalihim waljamcu اlamlaau, saasuu micnihi isaga nihaayad uu ku sheegay. ayib marka fashaadu shaadka marka alamru shaad iyo munkarka waxaa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan oo ardayga laga rabo in uu baaro. shaadka luqada waxaa waaye shadda infarada can اljamacati yuqaalu shadda yashudu wa yashidu, saasaa la yihahdaa. imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi isagu micnihii tusaalooyin badan ayuu micnihii ka bixinaya oo hadda kaan idin soo tilmaamay ay ka mid tahay. wuxuu leeyay imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi can yunus ibnu cabdilaclى qaala samictu waxaan maqlay ashaaficiya yaquul isagoo dhahaya laysa ashaadu min alxadiiثi, shaadku xadiidka kama mid uu leeyay imam shaafici. an yurwى hiqaة xadiiثa lam yarwiihi gayrahu, inama shaadu min alxadiiثi an yarwiya hiqaatu xadiiثa fayashuda canhum waaxidu fayukhaalifuhum. yani isaga saas ayuu ku tilmaamay. xaakimna macrifada isaga naftiisa shaadku wuxuu leeyahy ashaadu an yarwa hiqatu xadiiث yukhaalifu fiihi الnaas, tacriifkaasu yani isagana uu siiyey. facalى kuli xaal ayagoo dhan markii laisu geeyo waa isku wada mid oo tacriifaadkaas calى kuli xaal waa dad micnihii lagu kalsoon yahay oo yani khilaafayo.
مخالفة ثقة أو صدوق لمن هو أوثق منه أو ناس كو لبا waxay tahay تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده لبا mida koowaad waxaa waaye qof micnihii mukhaalafa hiqatun aw saduuqun qof isaga micnihii loo kalsooni badan yahay inuu khilaafo mida labaad waxaa waaye tafarudu man laa yaxtamilu xaaluhu inuu qof xaalkiisa yani inuu la kala noqdo xadiid man qof laa yaxtamilu xaaluhu qabuul tafarudihi qof kaligii hadduu yahay aan xaalkiisa la qaadan lahayn waa mida labaad oo micnihii ay geliyaan taasay micnihii ay tilmaamaan ilaa iyo 3 iyo 4 camal ay adigu noocahaas ku tilmaamaan tacriifka xadiidka shaadka waa qismu marduud isagoo ku jiraa qismu marduud ayuu isagoo ku jiraa oo ma aha yani qismu anwaacdi saxiixda ahaa ma soo galaayo shaadka waxaa waaye wuxuu soo galaya meelahaasuu soo galaa ayib facalaa kuli xaal xadiidka shaadka waxaad ogaanaysaa shaad wuxuu leeyahay imaamu dahabi oo kale wuxuu leeyahay yuctabaru shaad munkaran cinda dahabi shaadka munkar waa uu noqon karaa uu leeyahay daciifna waa uu noqon karaa cinda ibnu xajar isagoo daciif ayuu noqon karaa shaadka uu leeyahay ninka la yihahdo imaamu dahabin wuxuu leeyahay yani saas ma arrintu waxaa laga yaabaa in ay ka duwan tahay bal munkar uu noqonaya uu leeyahay xadiidka laakiin xadiid faaxish ama galadka o kathrati yani o kathiiri algafla oo kale sida aan ognahay isaga waxaa waye yuctabaru munkaran nushaduu kusoo gurinaya ibnu xajar waana imaanayan kuwa ayaga ah sheekhu marka hadalkiisi uu sii watay wa qowluhu wuxuu yihi walmaqluubu xadiidka maqluubka ahna qismaani waa laba qismood oo laba qeybood oo tala la akriyo oo labadan qeybood macnihii maxay kala yihiin maqbuulka isagana muxuu yahay maqbuulkiiu marka sheekhu uu sheegayo wuxuu leeyahay ibdaalu raawin ma biraawin qismun bacdama almaqbuulki walmaqbulu qismaani intala maqbuulka waa laba qeybood oo la akriyo mida koowaad waxay tahay ibdaalu raawin ma biraawin qismun raawi lagu bedelo waa qeyb wa qalbu isnaadin liman yani lilmatni qismun matniga oo isagana maqluub laga dhigana waa qismigii labaad saasuu isaga kusoo gaabsanaya wuxuu leeyahay ayib xaggaasi shaadka ayuu sheegay shaadku marka manqalaba ayaa la yihahdaa waa shay gadoomay ayaa la yihahdaa qalbu lkitaab yani qallabu alkitaaba ay waxaa loola jeedaa xawaltuhu can wajhi yani buugga kitaabka markii saa loo kala rogaayo yamantan waxay dhahaa iqlib yani waa gedi saasay micnihii leeyihin iqlib ayib marka maqluubkan waa shay micnihii asalkiisa la gediyaa la yihahdaa see loo gediyey xadiidkan cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu inama alacmaalu binniyaati wa inama likuli imri'in ma nawa haddii aan dhahno inama alacmaalu binniyaatin inama niyaatu bilacmaal haddaan dhahno yani taqliibaan sameynay waan rognay inama alacmaalu biniyaat sooma ahayn biniyaati inama alacmaal haddaan akrino xagga aan u rogno waan rogno xadiidka micnihi waa gedisan yahay sanadkana yani qeybta labaad haddii qeyb maqluubka sanadkan u galo matniga u galo ibdaalu raawin biraawin raawi in lagu bedelo sidee tahay waxaa waaye calqam ibn abi waqaas alleythi sooma ahayn wuxuu ka wariyey can cumar ibn khataab ayib waxaan leenahay calqama cumar ayaa wuxuu ka wariyey calqama waxaan leenahay can cumar ibn khataab can calqamata ibni waqaas alleythi abu muxsin can الnabiy sal allahu alayh wasalam waan rognay marka xadiidka waa maqluub sanadkiisii yaan rognay sanadkiisii ayaa dhinaca kale loo rogay yani maqluubka saasaa loola jeeda qalbu fi lisnaadi wa huwa alakthar sanadkoo la rogan inta badan bimacnaa way timaadaa wa qalbu fi lmatuni wa huwa aqalu min yani markii loo fiiriyo kan kale isnaadka markii loo fiiriyo waana kala badan yihiin ayib ibdaalu raawin ma biraawin ay raawi kana waqad yakunu libdaalu akthar min raawin biraawin aakhar in lagu bedelo daya waxda ayib waa khalasadaha insha allah
تعال دقيقة واحدة، ثانية واحدة، دقيقة واحدة، ثانية واحدة. waxaan umalaynaya salaadii ayaa soo gashay. xadiidka marfuuca ayaan tusaalihiis kusoo qaadi doonaa. qeybtaas ayaan ku ekaanana haddii alla subxana wa tacala u yidhaahdo. subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka wa atuubu ilayk.